sheekh xasan nasrallah waa wadaad shiica oo tan iyo bishii Febraayo sanadkii 1992 madax ka ahaa kooxda Xisbullah ee dalka Lebanon. kooxdan ayaa xilligan lagu tiriyaa mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ugu muhiimsan dalka Lebanon, kuwaasi oo leh ciidamo hubeysan oo u gaar ah oo ay weheliyaan ciidamada qaranka Lebanon. xasan nasrallah oo caan ka ah waddanka Lebanon iyo dalalka kale ee Carabta ayaa lagu tiriyaa wejiga ugu weyn ee Xisbullah, wuxuuna door muhiim ah ka qaatay isbeddelka taariikhiga ah ee kooxdan ay u galeen saaxada siyaasadda iyo awoodda ay ku leeyihiin bariga dhexe. waa xiriir qoto dheer la leeyahay jamhuuriyadda Iiraan iyo hogaamiyaheeda Ayatollah Ali Khamenei. inkasta uu Maraykanku ku daray Xisbullah liiska ururada argagixisada ah, haddana madaxda Iiraan iyo Nasrallah midkoodna ma qarin xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya. xasan nasrallah waxa uu leeyahay taageerayaal badan oo jecel, islamarkaana waxa uu leeyahay cadow badan oo muddo ah kama uusan soo muuqan fagaare weyn isagoo ka baqaya Israa'iil inay beegsato. inuusan soo muuqan ma aysan sababin taageerayaashiisa inay waayaan khudbadihiisa. khudbadaha uu jeediyo ayaa ah aalad muhiim ah oo Nasrallah u adeegsado inuu uga faalloodo arrimo kala duwan oo ku saabsan Lebanon iyo daafaha caalamka. markii uu Nasrallah ku biiray kooxda Xisbullah waxa uu jiray 22 sano oo kaliya. bartamihii 80-kii ayuu mar kale Nasrallah waxa uu go'aansaday inuu u guuro magaalada Qum ee dalka Iiraan si uu sii wato waxbarashadiisa diiniga ah. muddadii uu ku sugnaa macadka Qum, sheekh xasan nasrallah waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu xeesha dheer ee ku hadla luqadda Farisiga ee dalka Iiraan aadka looga hadlo. waxa uu la samaystay saaxiibo badan oo saameyn siyaasadeed iyo mid militariba ku leh dalka Iiraan, taasi oo ah xulafo weyn oo la isku halayn karo. markii uu laabtay waddanka Lebanon, isla markiiba waxaa dhashay khilaaf weyn oo u dhexeeya isaga iyo Cabbaas Musaawi oo ka tirsanaa hoggaanka Xisbullah. wakhtigaas Musaawi waxa uu taageerayay kordhinta dhaqdhaqaaqyada Suuriya iyo saamaynta Lebanon ee hoggaanka Xaafid al-Asad. taas beddelkeed Nasrallah waxa uu ku adkaystay in kooxda ay diiradda saarto weerarada ka dhanka ah askarta Maraykanka iyo Israa'iil. inkasta oo hadalladiisa ay u badnaan jireen kuwa hanjabaada oo u jeedinayo maamulka Yuhuudda, haddana intii uu hogaaminayay Xisbullah waxaa la xasuustaa inuu mar la galay dagaal culus sanadkii 2007, wakhtigaas oo dagaal faraha laga gubto uu dhex maray Israa'iil iyo Xisbullah. hadda waxaa la soo warinayaa inuu ka mid yahay hogaamiyaal dhowra oo ka tirsanaa kooxda Xisbullah oo ay dishay Yuhuuddu.